بسم الله ما تعرف أنا كالله حس الشيخ هادستي وهذا جبوتي يا رأينا كالله هذا نوع سوتي سكراب كنا صار لايك هذا قصة هذا وحنا لا يعني ورأينا كالله ما أنت نيك اللي يراهده حس الشيخ محمد سفر كيسي وكل توجواي وسيرة أيضا على صديق madaxweynihii markuu u tagay ismaaciil cumar geelle wuxuu yiri ismaaciil cumar geelle calan xun sarku ugu xiray madaxweyne xasan wuxuu yiraahday habeenka horta fiican baa saxday anoo xasan waxaa oran lahaa madaxweyne xasan waa nin bahdil uu haysto waa bahdilay niyadu ka bahdilay calan xuna oo sarku kugu xiray ismaaciil cumar geelle dadkiisii waa gaajo u dhimanay ismaaciil barabaro nin dhanoo dooliyo ah musqul buu ku xiran yahay siidaa waa laga waayey madaxweynihii ugu horreeyay cabdullaahi yuusuf ka hor buu joogay intaasoo dowladda soomaaliya isbedeshay buu joogay marka ninka saa dictatoriga oo aan la hadli karin oo dictatoriga ah calal uu xasan sheekh maxamed an waxaan lahaa xasan oo calal yar oo sulka kugu xiray waxba kuu tari mayso calal yar oo gacanta kugu xiray midna wax ku tari mayso laakiinse waxaanu Ethiopia way ku diiday inaad waddankeeda timaadid maxaa yeelay maadaama aad tahay nin khatar ah oo Ethiopia ka baqday sirteeda inaad banaanka u bixisid eeba ka baqday maxaa yeelay turkigana saas u baqay ani madaxweyne xasan waxaan ku dhihi lahaa waddamadii oo dhan waa kaa shakisan yihiin madaxweyne farmaajo waxay u malaayiin saa uma socon jirin adiga madaxnimadiiba waxaa ka fahantay inaad meel kasta u duushid waagii hore aad ku baalowday maxaa yeelay waagii hore xoogaa bay madaxayaasha waxoogaa bay kuusoo duubeen oo hoos kuusoo gasheen marka mar kasta carabku ciidan kul yooma mashciid iid maaha hadda waxaasoo safar aad sameynaysa waxaa kaaga ficilaa xataa waxaad tiri soomaali saal waa lagaa soo sheegay ma soomaali waa saalgalaan kartaa xamar baadan qayb inaad maamushid may kulligeed aada wada sheegan karin haddii maanta dowladdaas burburto waa ognahay kaaraan madaxweyne kaaraan ma soo dhaafaysa Ethiopia waxay ku tiri nooma imaan karti waa ku diiday diyaaraddii lacagta ay kaa horumarsatay waa kaa gubatay bal fiiri khasaaradaa la kulantay weliba waxaan leeyahay lacagta aad ku safraysid ciidamadii waa ka jartay mushaarkoodii baa qayb goysa wiil beledweyne jooga wuxuu yiri markii lagu doortay madaxweynew wax noogu dari maysid bal labadeena boqor ha naga taabanin farahaad gelisa bajaaskii canshuurtii 20 baa uga dhigtay dadkii oo dhanba dab baa ku shiday halkaa madaxweyne xasan waxaa ka cad inaadan doonayn dalka inuu dhisnaaday waxaa rabta inaad burburisid maxaa yeelay adiga dalkuwa kuu dhisnaa burburkaada ku faa'iiday jaamacadaha aad furatay siman 1 siman 2 aad leedahay waa jaamacadii soomaaliya waxaana hadda ka hor tiri soomaaliya dadkii burburiyey baan ka mid ahaa in lagu doorto markii ugu horreysay khaladahay ee dadkaan ku aqoon culmo badan baa kuu duceyso nin fiican oo faraha dhiig ku lahayn baan dooran faraha iska daayay iskaa dhiig ku lahaday madaxweyne waa lagu khaldama haddii lagu doortay haddana doorasho kumaa la imaan madaxweyne xabiib malaayiin farmaajo markuu yiri 2 sano ha laygu daro doorasho cod iyo qof baan gaarsiinayaa dowladda waxaad waa diideen geeli baa waxaa kusoo qorteen 1990 kusoo qorteen lidad qalbigii ka bukaatiyey maxaa diidaysa ilaa lagu soo dooranaya baad ogeyd haddana nimanbaa kugu shubay markaan waxaan ka oran lahaa madaxweyne intaa isku xishootid ciidamada mushaarkooda u kordhi socodka faraha badan iska daa soomaaliya ma seelgarayn kartid dadka dhulkooda cidaa ka boobi kartid ma jirtee madaxweyne safarkii intaad daysid dowlad dadku ay ku faraxsan yihiin samee tuugadii
kaaraantii aa u dhalatay dad ku baabi'inaysaa. waxay ku baabi'inaysaa magaalada gudaheedii. moobeeladii farmaajo markuu joogay, madaxweyne farmaajo markuu joogay 7 saaca laga imaan jiray Liido. haddana casar dheeraa la xaroodaa. dadka guryihii baa loogu dhacayaa. weliba dadka ku dhacaya dadka u dhacaya dadkaas waa dadkaagii qabiilkoodii bay sheegayaan. wuxuu ku leeyahay halkaasaa ka imid leeyahay gaalaha baadiyaa ka imid ninkaana yidhi reerkaasaa u dhacna. haye waa social media taala. mid wuxuu leeyahay halay dhamaystiro walaalo naftii dhaafi u leeyahay. mid wuxuu leeyahay walaalo hay dhaafini. dadkaagii baa dadka furanaya madaxweyne. aniga waxaan ku oran lahaa haddaad adigu tuugada la shaqeyn ciidamada waxaa weeye shaqo geli hala qabtane tuugadan dadka dhibaateynaysa oo moobeelada ka furanaysa hala qabtane. wadankii khalkhal buu ku jiraay. sida u dhaan farmaajo nin aad gaari karta geedu harsaday ma atiida xasan ma tiid. laakiinse nin maseer dilay baa tahay. waa maseersan tahay. sidii aad farmaajo ku gaari lahaydna ma garanaysid. madaxweyne isku xishood. dadkii faruhu ka baxay. ciidamada lacagtooda u kordhi. dadka cashuurtaa ku dallacaysid ka daa. 4 sano dadka ayagoo ay faraxsan yihiin dadka oo adiguna aad sharaf leedahay inaad meesha ka tegtid baa lagu qaataayo madaxweyne. sida isku dhaan adduunka sharaf ka raadi aakhiro. nabigeena calayhi salaatu wasalaam 63 sano nabigeena ku dhinta. adigana 70 baa jirta. aakhirana kama baabaqaysidba. qofka waxaa la yidhi hadduu meel u seexdo helo wuxuu cuno helana waxaa la yidhi ilaahay ha ka baqo wixiisa xaaraantaas ka ilaasho. adigana magaalada waxay yaallo dhan adaa leh. kala baroo bar adaa samaystay. haddana waa dhargilaada madaxweyne. ilaahay ku dharjiye madaxweyne. ilaahay iimaankaa ku soo cesho. iimaanna allah kuu yeelo. 70 sana jirtaa ilaa 100 sano umalaymaya iimaan kale inuu kusoo socdo. umalaymay madaxweyne. sida isku dhaan baan ku leeyahay. caalamka waa kaa yaabaya. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. nabaday.